Israa'iil waa dowlad aad u yar oo lagu dhisay dhul bililiqa oo Falastiin laga qabsaday. weligeediina caalamka kama jirin wax la dhaha dowladda Israa'iil. Fikirka dowladnimada Israa'iilna waxa uu ahaa kumanaan sano wax lagu hamin jiray. Xitaa buugaagta qadiimka waxaa laga helayaa fikirka manhajka aasaaska ee dowladnimada Israa'iil la doondoonaya in lagu dhiso. waayo waagii hore Yahuuda waxa ay ahaayeen dad ummado kale dhexdoodii isaga dhex nool. xilligii Fircawn iyo Muusa calayhi salaam waxa ay ahaayeen dadka Fircawn oo ciyaalka ka gowraci jiray. waxa ayna xilligaa ku jireen gumaysigii Fircawn. marka Muusa calayhi salaam uu ka soo badbaadiyey Fircawn kadib, hadba taariikhda ummado kale ayay Yahuuda hoos imaan jirtay. ugu dambeyn waxaa dhashtay fikir ah in dadka Yahuuda la mideeyo lagana dhigo dad madax bannaan oo dowlad haysta. dadkii ugu horey ee fikirkani u ololeynayna waxaa ka mid ahaa Montefiore, ninka lacagtoodii ku sawiran. ninkanina waxa uu ahaa nin Yahuudi ah oo taajir ah oo Yurub ku dhex nool. waxa uu jeclaaday dadkiisii in dowlad ay u madax bannaan yihiin inuu u dhiso. waxa uuna aaday dhulka Falastiin, halkaas ayaa waxa uu ku sameeyey qiimayn aad u weyn. waxa uuna arkay dhulka Falastiin meel aad u barakaysan oo nimcooyin oo dhan ay u dhan yihiin in ay tahay. markaas ayaa ninkani inta uu Yurub u soo noqday ayaa waxa uu gudagalay si tartiiba midaynta dadka Yahuuda inuu ka shaqeeyo. xilligaasina waxaa maamulka Falastiin ku dhex noolaa 8,000 oo Yahuud ah oo keliya. inta kalena daafaha adduunka ayay ku noolaayeen. waxaa la aasaasay ideolojiyada ama dhaqdhaqaaqa Sionismka. Sionismku waa aragti tilmaamaysa Yahuuda ku dhex nool dhulka Falastiin in loo ogolaado meel ay ku madax bannaan yihiin oo ay ku noolaadaan, yacni dib inay u soo cestaan dhulkii asalka ah oo ay lahaayeen. xilliganina Yahuuda waxay isku arkeen iyaga in dhul badan, weliba qabaa'ilo tiro badan inay ka maqan yihiin. waxaa naga maqan ayay dhahayeen dhulka Falastiin gebigiisii, Suuriya, Iiraan ilaa Turkiga. juqraafigaas oo dhan in asal ahaan iyagu ay leeyihiin balse laga qabsada ayay rumaysnaayeen. ilaa maantana waa sida ay rumaysan yihiin, waana dhulka Yahuuda ay u yaqaaniin dhulka Yabooha. maalinta ay noqoto waxa ay rumaysan yihiin in dib dambe Yahuuda dhulalkani oo dhan ee bariga dhexe in dib ay u soo ceshan doonaan, sida Falastiiniyiintaba si tartiib ah dhulka ay uga qabsadeen. waana marka kitaabka Qur'aanka Kariimka uu ku tilmaamayo tillaabadani marka ay qaadaan waa xilliga dhulka oo dhan ay ka ciribtimi lahaayeen. kitaabka Qur'aanka Kariimka waxa uu sheegaya dhammaadka Yahuuda iyo burburka dowladnimadoodii sida uu dhici doono. ka hor inta aanan aayadaha Qur'aanka u gudagelin ka hor, waxaa muhiim ah inaan isla ogaano dhaqdhaqaaqa Sionismka. markii la aasaasay kadib waxaa taageero xoogan u soo muujiyey dowladda Ingiriiska, Jarmalka iyo dowlado kale oo galbeed ah. intaa wixii ka dambeeyey taageerada ajaaniibta, hadba mar Yahuuda waxa ay bilaabeen in Falastiiniyiintii dhulka ay ka qabsadaan, ilaa heer Falastiiniyiintu ay gaaraan in ka badan 10 milyan in daafaha adduunka ay ku noolaadaan, dhulkoodii asalka ahaana ay ka soo cararaan. waxaana dhashtay 1948 State of Israel. waxaa isbedelay dadka Falastiiniyiintii ayaa kolkani waxa ay noqdeen dad dowladaha kale ku dhex nool oo dhulkoodii asalka ka soo cararay. waxyaabahani oo dhanna Yahuuda waxaa ku kalifay in ay sameeyaan waa dib u soo xuraysashada dhulalka iyaga loo yaboohay. hadafkoodii fogna waa in dhulalkaas ilaa juqraafigaasi fog oo dhan in dib ay u soo cestaan, kadibna macbadka Sulaymaan in dib ay u dhistaan. taariikhda adduunka xilligii ugu fiicnaa ee Yahuuda si wanaagsan ay u noolaadeen waa xilligii Sulaymaan calayhi salaam. xilligaasi in dib ay u soo cestaan hogaaminta dowladaha bariga dhexe oo dhan in iyaga u istaagaan ayay doonayaan. adduunka oo dhanna waxa uu qirsan yahay si kastoo dowladaha qaarkood indhahay uga laabtaan ama ay u doorbidaan in arrimahani ay ka aamusaan. dhulka dowladda Israa'iil uu ka dhisan yahay waa dhul xoog Falastiiniyiinta looga qabsaday. Israa'iil waxa ay ku taagan tahay ilaa maanta taageerada dowladaha ajaaniibta, Maraykanku ugu horeeyo. aqoon-yahano badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo juqraafiga bariga dhexe, dowladda Israa'iil uma ay arkaan dowlad mustaqbal leh oo weligeedii sii jiri doonta. qaar ayaa waxa ay qabaan 10 sano gudaheedii in dowladda Israa'iil ay burburi karto. Maraykanka inta uu horumarka Chinaha xifaartan uu kula jiro awoodda Israa'iil, taageero uu ku difaaco ma uu heli doono. waxaa la leeyahay kacdoonka carabta, baraaruga muslimiinta iyo Iiraan meel ay ku wada kulmaan, suurtagal ma aha in Israa'iil wax la dhaho in ay sii jirto. sida muuqatana qiyaasta analysyadanina waa kuwa sax ah. kitaabka Qur'aanka
qur'aanka kariimka waxa uu tilmaamayaa 2 jeer in yahuudda la burburin doono. marka koowaad yahuudda sida alle uu leeyahay kitaabkoodii towraadka ahaa waxaan ugu waxyoonay oo aan u sheegnay in dhulka 2 jeer ay fasahaadin doonaan. markaas ayaa waxay isku arki doonaan dad awood leh oo aad u sareeya heerka kibirka. xaaladdu marka ay yahuudda halkaa la gaarto waxaan u soo diri doonaa ayuu alle leeyahay addoommo halisa oo wax walba burburiya. Israa'iil oo dhanna addoommo ka tillaabsada heer guriyaashoodii addoommadaasi isaga dhex baashaalaan. kitaabka qur'aanka kariimka addoommadaasi waxa uu ku tilmaamayaa in ay yihiin dad uli ba'sin shadiid ah wa kaana wacdu rabbika mafcuula. tanina waa mid xaqiiqo ah oo dhici doonta. in sidan yahuudda loo burburiyana waxa sababayo waa fasahaadka iyo xadgudubka dhulka ay ku samaynayaan. 2 jeer ee dhulka yahuudda ay fasahaadin doonaan, tan koobaad addoommadaasi halista ee guriyaashooda iyo masjidkaba geli doona ayaa lagu soo diri doonaa. intaa kadib yahuudda soo hartaa waxa ay bilaabi doonaan inay ishagaajiyaan oo nidaam macquul ah ay la imaadaan. waxa uu alle uu leeyahay marka ay sidani sameeyaan dhaqaalahoodii, dadkoodii iyo askartoodiiba waa la kordhin doonaa. waxa ayna noqon doonaan dad awood leh oo cagaha ku taagan. halkaa marka ay xaaladdu marayso, qur'aanku waxa uu la hadlayaa yahuudda waxa uuna leeyahay in axsantum lianfusikum. haddii aad iswanaajisaan oo fasahaadka iyo dulmiga aad joojisaan waa wax adinka idin fiican. haddii aad si xumaantii dib aad u bilowdaan adinka ayay dushiinnii noqon doontaa. markaas ayay iyaguna yahuudda sidii hore dib ay u bilaabi doonaan fasahaadkii, dhulballaarsi, dulmi iyaga oo ku kalsoon tiradoodii, dhaqaalahoodii iyo awoodda la siiyey. muddo kadib marka ay sidaas sameeyaan waxaa lagu soo diri doonaa addoommadii uli ba'sin shadiidka ahaa. markaas ayay suurad xumayn doonaan yahuudda gebigood oo dhan. markaas ayay addoommadaasi inta ay yahuudda ka tillaabsadaan ayay masaajidkii qudus geli doonaan kamaa daqaluu awwala marra. wax walbana way burburin doonaan. aayadahani suuratu isra ee fasahaadka yahuudda iyo ciqaabta ay la kulmi doonaan ka hadla. mufasiriintu waxa ay ku fasiraan qaarkood ciqaabta hore yahuudda in ay ku dhacday si xunna taariikhda waa loo garaacay. masaajidka iyo wax walbana waa la burburiyey. ma xilligii buktunasar ayay dhacday? ma xilligii imbaratoonkii asriyiinta iyo masaaridii dhibkii soo gaara miyuu ahaa? ama boqorkii baabiyon ee masjidka burburiyey yahuuddana halkaa ka soo ceerimiyey? aayaddu tilmaamaysa khilaaf xoogan ayaa mufasiriinta u dhexeeya. balse dhinac marka aayaddani aad u fiiriso axaadiista waxaa kuu soo baxayo micno ah in yahuudda dharbaaxi kale inay u dhiman tahay. waayo nebi maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee waxa uu leeyahay qiyaamaha maba dhacayaba ilaa yahuudda iyo muslimiinta oo dagaal xoogan uu dhex maro un mooye. dagaalkaasina sida yahuudda loo geli doona heer waxa ay gaari doonaan adduunka oo dhan ay ka waayaan god ama meel ay isku qariyaan. geedaha hoostoodii iyo dushoodii ayay bilaabayaan inay isku qariyaan. geedkii ayaaba xitaa hadli doona oo muslimka ku oran doona kaalay gadaasheedii mid yahuud oo isqaranay ayaa ku dhex jira. waxaana lagu fasiraa geedahani hadli doona in yahuudda caalamka oo dhan in ay ka weyn doonaan qof u gargaara oo dagaalkani u soo hiiliya. dowlad walba waxa ay bilaabi doontaa in Israa'iil ay iska fogeyso. dowlad ay gadaasheedii ay gasho oo wehel ay ka dhigatana waa ay weyn doontaa. waxaase cajiiba in maanta dowladda Israa'iil geedka ugu badan ee dhulka ay ku beertay inuu yahay geedka Soomaalida ay u taqaan geed yahuudka. nebi maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee horay wuxuu u sheegay geedkaasi waa geedka keliya ee yahuudda gadaashiisii marka ay galaan aanan hadli doonin. geedkani geed yahuudka uu nebiga uu ku tilmaamay maxaa xikmadah oo ku jiro, muxuuse u aamusan yahay, maxaase lagu fasirin karaa? waqti xaadinkana sharaxaad dhammaystiran uma aanan helin. laakiin yahuudda maba ay rumaysneed diinta islaamka, maxay geedkani beeritaankiisii ay aadka ugu mashquulsan yihiin? waa su'aal cajiiba oo dadku isweydiinayaan. waxaa hubaala in adduunka oo dhan uu arkayo dulmiga muuqda ee Israa'iil dadka Falastiiniyiinta dhulkoodii iyo shacabkaba ay ku hayso, iyo masjidka xurmada leh ee muslimiinta oo dhan ka dhexeeya sida ay u galayso. hubaal waxaa ah muslimiinta caalamka oo dhan hal mar in ay sanka ka wada keeni doonaan dulmigan yahuudda, kadibna dharbaaxi culus ayay la kulmi doonaan. maanta waxaynu ognahay yahuudda mar walba oo ay damacdo ama dhowr bilood ayay masjidka iska xirtaa.
muslimiintuna waxay u diidaa in ay ku tukadaan. waxaaba xitaa dhacday marmarka qaarkood hareeraha masjidka inta ay xiraan ayaa dadku waxa ay ku dhahaan amniga ayaa laga taxadarayaa, halkani laguma tukan karo, iyada oo wax broblem oo amni ah aanay jirin. bilooyin badan ayaa masjidka lagu tukan jirin, isaga oo weliba masaajida ugu fadliga badan ee dhulka. qudus waa qibladii ugu horraysay ee muslimiinta ay u tukadaan, ilaa gadaal dambe alle nebiga uu ku dhahay halkaas ha u tukanin, wejigaadii masjidka xaramka yacni kacbada dhankeedii u tuko. tanina marka maanta dib loo fiiriyo waa xikmad rabbaaniya. waxa ay noqon lahayd qibladii muslimiinta oo sidaa maanta dulmiga loogu sameeyo. caalamka dowladda Israa'iil uma arko in ay tahay dowlad sii jiri doonto oo mustaqbal fog leh. maalinba maalinta ka dambaysana waxay dhuminaysaa saaxiibadeedii ugu dhowaa ee gargaarka ay ka heli lahayd. waxaa la sheegaa Maraykanka hadafyadiisii fogfog iyo juqraafiga bariga dhexe in Israa'iil aysan ugu jirin. waxaaba ka dhaadhacsan Maraykanka Israa'iil meel ay dhexda kaga jirto iskaashiga carabta, muslimiinta oo afarta dhinac kaga hareeraysan, Iiraan oo iyaduna dhinaca inaanay Israa'iil sii noqon doonin dowlad sii jirta. marka loo fiirina dulmiga ay maanta wadaan Israa'iil uma ay muuqato dowlad mustaqbal fog leh. waxaase cajiiba dulmigoodii unba isla iyagii ku soo noqon doona, sida aayadda qur'aanka kariimka ay leedahayba wa in asaatum falahaa. kama caajizi doonaan yahuudda in dulmigani ay sii laba jibaaraan ilaa dharbaaxidii qur'aanka uu sheegay ay ku imaan doonto. kitaabkoodii towraadka ahaa isaga oo la taxriifiyey oo baadil ah, cibaaraad noocani oo kala oo tilmaamayo in yahuudda la burburin doono oo ay kala carari doonaan oo meel ay ku dhuuntaan ay raadsan doonaan ayuu sheegayaa. dagaalka xooggan ee qiyaamaha haddii aad furtay kitaabkoodii buugga Yeremiya cutubka 4 faqrada 3 waxa uu leeyahay rabbiga dadka yahuudda iyo kuwa Jerusalem degan waxa uu leeyahay dhulkiinii jeexan iska jabsada oo meel qodax leh dhexdeedii waxba ku beeranina. waxa uu rabbigu idin sheegayaa inaad isgudaan oo buuryada qalbiga idinkaga jirtaan aad iska saartaan, si uusan xanaaqa rabbi iyo dab uusan idinku dhicin sharta aad samaynaysan aawadeeda. faqrada 7 haddii aad u soo booddo waxa ay leedahay libaax ayaa jiqda idinkaga soo baxay, dowlado wax baabi'iyana way idinku soo kaceen. dhulka aad degan tihiinna in ay qabsadaan oo magaalooyinkiinni oo dhan ay burburiyaan ayayna u soo bixi doonaan. markaas waxaad samaysaan qeeliya oo ooya oo baryootama dhulka ka carara. inta aad qaadataan codbaahiye dib ugu noqo. faqrada 5 waxa ay leedahay isu soo urursada oo dhaha adinka oo dhan inakeena oo dhulkani aynu ka baxnay, inakeena oo dhulkani aynu ka baxnay. xaaladani waxa ay muujinaysaa kala cararka ku dhici doona sida ay dhulka uga bixi doonaan. dabcan waxyaabahani kitaabkoodii ku qoran inaga referensi inooma noqdaan, laakiin ugu yaraan marka ay kitaabkoodii iyaga ay akhrisanayaan waxa ay ka dhex arkayaan libaax in jiqda uu ka soo baxay iyo quruumo halisa oo wax baabi'iyana inay ku soo socdaan. natiijadeeduna in ay noqon doonto in magaalada laga qabsado oo dhulka oo dhan ay ka baxaan. maalmo kooban yahuudda in adduunka oo dhan magacoodii ay maqalsiiyeen, loona arka sida dad saamayn leh oo awood leh oo aanan loo dhowaan karin inay yihiin. waa sida qur'aankuu sheegay awooddii iyo dhaqaalihii oo loo kordhiyey, laakiin ugu dambayn in aysan sii jiri doonin isla iyaga kitaabkoodii ayaa qiraya. guushuse waxay u dambayn doontaa muslimiinta xaqa ku taagan.